السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا ونكسن دمان أصحابنا نقولن وحن مقال كان كجا هذا الدورنا إسلام كان كوفة فاهين دورنا دمان انترفيو يدا كندي أمريكان انتبه هذا سيدا أدل الصعوتان وح مالمه وجودن بيسوي بدني تدك انترفيو جا كل عيا أما ريجكت جلسينيا وأنا مهم إن بلشدو أكتهي هلك وحس كده بمرسيين أما كيني كرا إن دتكو انترفيو جا كل عان فضلا حدي أي تهمرك وجوه الرئيسية أتصب وغتجنر كنا وحن نجح حسوسين إن هذا نلاد دافين لايكتا شيرتا iyo subscribe intaba si fiidiyowgu meel fog u gaaro dadkuna uga faa'iideystaan haddaba aan kala qaadna ee interviewga haddaan ku horumarno inta badan waxa uu ka kooban yahay afar qaybood oo waaweyn oo kala ah waxa loo yaqaan background questions oo ah su'aalaha la xiriira xogaha shakhsiga tusaale magaca da'da goobta dhalashada heerka aqoonta shaqada inaad guursatay iyo in kale caruurta xaaska waalidka guud ahaan su'aalaha noocan ah waxa ay ka turjumayaan sax ahaanshiyaha qofka aad tahay tan labaad waa waxa loo yaqaan security questionska oo ah su'aalaha amniga ku saabsan tusaale weligaa dawlad ma u shaqaysay ciidan ma noqotay marna dalkaagii dib ma ugu noqotay intii aad qaxootiga ahayd marna dalka ma ka baxday iyo wixii lamid ah waxaadna xasuusnaataa su'aalaha noocan ah haa iyo maya ayaa kaaga filan yacni uma baahnid inaad sii faahfaahiso tan saddexaad waa sponsor questions oo ah su'aalaha kafiilka la xiriira aan sii fasira ee kafiilka waxaan ula jeedaa qofka ku sponsor garaynaya ee Canada jooga waxaana oran karnaa waa su'aalaha ugu fudud uguna gaagaaban ee qofka la weydiiyo tusaale kuma ayaa ku sponsor garaynaya maxaad isu tihiin qofka ku sponsor garaynaya sheeg halka uu degan yahay gobolka iyo magaalada dhanka aabe mise dhanka hooyo ayaad qaraabo ka tihiin wax xiriir ah ma lahaydeen inta aad wadankaagii joogtay isaga miyaa ku soo raadiyey mise adiga ayaa raadiyey yacni yaa bilaabay xiriirka iyo wixii lamid ah tan afaraad waa waxa loo yaqaan case questionska ama su'aalaha inta badan case-kaaga la xiriira waxaana dhihi karnaa waa qaybta ugu adag haddii la barbar dhigo saddexda qaybood ee aan hore uga soo sheekaynay maxaa sababay in su'aalaha case-ka ka imanaya ka adkaadaan kuwa kale wax kale maaha ee waa in case-ku yahay saldhigga dacwadaada ama si kale aan u dhiga case-ka ayaa base u ah dacwadaada marka aan tusaaleeye waxaa ka mid ah waqtiga iyo goorta aad ka soo baxday wadankaaga goorta aad soo gashay wadankan aad hadda qaxootiga ku tahay imaatinkaagii dalkan iyo isdiiwaangelintaadii qaxootiga waqti intee la-eg ayaa u dhexaysay sharaxaad ka bixi sababta dalkaagii kaa soo waday iyo wixii lamid ah runtii ma adka su'aaluhu waa haddii aad qof xogtiisa soo akhriyey soona khulaaseeyey aad tahay laakiin waa ay kugu adkaanaysaa haddii aad taas beddelkeeda tahay tusaale waxaad marmarka qaar arkaysaa dadku oranaya kayskayga war uma aanan haynin qof ayaa ii diyaarshay hadda ayuuna ii soo diray waxaa laga yaabaa qofka sidaas u hadlaya in interviewgiisu maalin ama 2 maalmood ka dhiman tahay waxa kale oo aad marmarka qaar arkaysaa qofku leh interview ayaan berri leeyahay foomkuna English ayuu ku qoran yahay marka ii turjun si aan u fahmo halkaas waxa kaaga soo baxaya in qofkaas wixii berri la weydiin lahaa uusan wax saas u sii roon uunan ka ogeyn ayna jirto habacsanaan iyo dayac ka muuqda qaabka diyaar garowgiisa waana tan inta badan keenta in hadalkaba lagugu soo gaabsho waanu ku soo wacaynaa taasoo micnaheedu yahay in aan kiiskaaga lagu qancin mid kalena aan idin xasuusiye guud ahaan interviewga iyo su'aalaha la isweydiinayo waa hal nooc marka aan ku leeyahay waxaan ula jeedaa yacni waa su'aalo la isla og yahay oo guud ahaan sida caadiga ah aan ka bixi karin qaybaha aan ka soo sheekaynay maxaa intaas dheer waxaa jira wax loo yaqaan indirect questions oo ah su'aalo aan kiiska ku qoran ka mid ahayn si dadbanna lagu weydiin karo tusaale magaalada dhibku kugu soo gaaray ee aad kiiskaaga ka diyaarisay haddiiba aad go'aansatay in aad ka tagto waxaa jira magaalooyin badan oo nabad ah maxaad kuwaas u aadi weysay oo aad ku dooratay inaad qaxooti noqoto cid ma ka garanaysaa dadka interviewga kula maraya wax ma ka taqaan dhaqamada dalka aad u socoto su'aalaha noocan ah waa suurtagal in lagu weydiiyo adiga i dhegaysanaya ayaana laga rabaa in aad si degan oo ka fiirsi leh uga jawaab celiso waxaa kale oo muhiim ah dhowr jeer oo horena muuqaal ka soo samaynay kana tala bixinay arrimahan soo socda laakiin aad weli moodo in bulshadu aysan ku baraarugsanayn waxaana ka mid ah ilaalinta waqtiga inaad qaadato dhammaan dokumentiyada xiriirka la leh interviewgaaga sidoo kale kalsoonidu waa muhiim maxaa yeelay mar walba oo aad u muuqato qof isku kalsoon waa mar walba oo sax loo arko waxa aad sheegayso ama jawaabahaaga waxaa kaloo muhiim ah fahamka su'aasha lagu weydiiyey maxaa yeelay su'aasha lagu weydiiyey oo aad fahamtaa waxa ay ka dhigan tahay jawaabta haafkeed waxaa kaloo muhiim ah dareenka qofka maxaa yeelay mar walba oo deganaan dhanka dareenka ah aad qabto waa mar walba oo jawaabaha aad helayso ama jawaabuhu aysan ku dhibaynin indha ku haynta
ama waxa loo yaqaan air contact waa muhiim iyaduna maxaa yeelay waxaan marnaba la ogolayn in marka aad jawaabaha bixinayso aad jeesjeesato ama ismashquuliso sidaa darteed waa inaad jawaabtaada bixisaa adiga oo eegaya qofka interviewga kaa qaadaya waxa kale oo muhiim ah rabaana inaan xuso kala hadalka oo mar walba oo hadalladaada laga dareemo inay iska hor imanayaan ama ha noqoto in kayskaagu sidaas u qoran yahay ama mid markaas kaa timid ha noqotee waxay saamayn culus ku yeelan kartaa dacwadaada waxaa kaloo muhiim ah ku ekaanshiyaha xayndaabka su'aalaha oo ma wanaagsana in marka su'aal jawaabteedu haa ama maya tahay lagu weydiiyo aad faahfaahin dheer oo aan lagu dirsan gasho ugu dambayn waxaan guud ahaan bulshadeenna meel iyo waa ay joogaanba u rajaynaynaa guul waxaana mar walba naga go'an inaan bulshadeenna u soo gudbinno lana wadaagno waxyaabaha aan isleennahay way ka faa'iidi karaan haddii ay tahay markii ugu horreysay ee aad soo booqato janalkeenna waxaa naga xasuusin ah in aad fiidiyowga lay garayso siina sheer garayso si uu meel fog u gaaro dadkuna uga faa'iidaystaan talooyinkan muhiimka ah hana hilmaamin inaad subscribe tiraahdo si xogaha aan janalkan ku soo gudbinno aysan marna ku dhaafin intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno oo walaalkiin saacid xaaji aadan oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu